بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحان آدو سلام يا أصحابتك وحران كانك فردوس تساني وحان مهد علينا يا أصحابتي هره مركز تم إلاو وأنو مهد علينا يا أصحابتي مركيبة إلا كان قاطي وحان كلان أن مهد علينا يا أصحابتي عصب مر والبا إيقو صوبيرتا waxaan kaloo u baaqayaa asxaabta hadday channelkaygan arkaan please waxaan idinka codsadaa waa like waa share waa comment caafimaad qaba intaba waxay ii tahay dhiirigelin iyo dardar waxaan ka hadli doonaa insha Allah biidnillah waxaan ka hadli doonaa inta badan fiidiyoyadayda horaan idinku soo sheegay markaan kuwa yaryar seexiyo ayaa waan soo duubaa habeenkii xilliga idin soo gaadhayna Allahu a'lam marka waxaan ka hadli doonaa waxaan galay Facebooka iyo TikToka waxa haysta wiilkan sawirkiisu idin muuqan doono oo aan shaashada soo saari doono wiilkani waa wiil bajaajle ah wiilka bajaajle ah wuxuu ka kala shaqeystaa dowladda deegaanka Itoobiya ee magaalada madaxdiisa Jigjiga wiilkan wuxuu soo qaaday sidaad ku aragtay fiidiyoyada inta badan caawa ilaa iyo maanta wax kale lama haynin wax kale oo la hayay may jirin kaliya waxa la hayay wiilkan maamo ayaaba ka soo raacday xaafad la dhaho qofkii garanayay Itoobiya uu garanaya xaafada la dhaho Siraacandi marka xaafaduhu waxay u kala qaybsamaan Siraacandi Siraauleti Siraasosti waxa weeyaan number 1 number 2 number 3 oo kale marka Siraacandi waxa weeyaan number 1 amba number 1 koob xaafada koobaad ama xaafada 1 Siraacandi qofkii garanaya af Itoobiyan kana waa wada garanaya qofkii xaafada ku noolaa arkay anigu dhowr jeer baan tagay Itoobiya waliba Jigjiga sii maray anoo hadii sababiyo dira dhabo socda Itoobiya Jigjiga waan arkay xaafada aad baan u aqaana wiilkan yar caalamkii Soomaalidii meel kasta oo ay deganeed ama qurbaha ahaato ama qofkii afka ilmaha yar garanayay wala la yaabay aad baa loola yaabay sababta loola yaabay waxay tahay ilmo yar lacagtii misaheed 900 oo kun oo Kenya bahalkii maxay ahayd lacagtan Itoobiyaanka ah oo bir ah xoolaha waxa iska lahaa caruur agoona siday maamadu sheegtay wiilkii lacagtaas uu kaga tagay bajaajti wiilkii baa soo xamaalay hooyadii buu gacantii ka galiyay ma garateen haddaba sababta loola yaabay maxay tahay sanadadii dambe dadku waxay noqdeen dad quuta xaaraanta hadda fiidiyoga waxaan u soo duubay ujeedadan kale waxa ay tahay inaynu dhiiri gelino xalaasha bariyihii u dambeysay dadkii waxay noqdeen dad quuta xaaraanta xaraan quudata waxa lala yaabay oo maskaxdii ka gali weyday wiil yar sawirkiisu sida idinku muuqdo waa wiil yar waa wiil dhalinyaro ah waa wiil aad iyo aad u yar wiilkaasi waxa soo gashay lacag inaba aan caadi ahayn lacagtaas wuu awooday inuu yiraahdo ma arkin wuu awooday kama tagin wuu awooday inuu u geynin wuu awooday intuu qaato magaalada dhinaca kala galo ilaa iyo inta ilmo yaro dan yaro aad ogtiin awoodiisa oo bajaaj eriyada oo waxaan ku sidaa ula orda bajaajna waxa laga helaa ama waxba laga helaa ama maalintii bad wax yar oo shilma ah ka helaysaa sababta wiilka saartay bajaajtu waa dan yar wiil yar oo markaa dan yar dadkii waxa ka wareerisay wiil dhalinyaro ah oo lacagta inta la gacanta ku dhuftay oo lacagtii markii uu gacanta ku dhuftay arkay
hooyadii markay cirka iyo dhulku saa ugu soo yaraadeen ilaa caruur agoonay ayay usoo qaaday oo lahaa markii ay heshay farxad bay ilmaysay. mabay ka filayn lacag aad bajaaj kaga tagtay ayaabaad helaysaa. waxay ogeyd samanka dambe inaan wax adduuna oo la helay aan laysku soo celinin. haddaba ujeedada aynu inanka sawirkiisa usoo qaadanay fiidiyowgeenana ugu soo qaadanay waxa weeyaan in la quuto xaaraanta. ilmihii sanadkan ama qarnigan aynu ku jirno ee qarnigan aadka u adag waa wiilkii aynu odhan karaynay wuxuu noqday number 1 xalaal quute. haddaad maqashaan haddaba qof baa xalaal quute ah ama hebel waa xalaal quute, waa wiilkan. xalaal quute waa wiilkan. waxa aynu leenahay haddaba iska daa adduunyo aad heshide waxaa loo badheerayaa oo la qaadanayaa qofka ayaabaa la dhacayaa, si cad loo dhacayaa oo si cad ayaa loo dhacayaa. marka wiilkani waa wiilkii sanadkan ugu xalaal quutaysanaa. allaha barakeeyaanu leenahay. haddaad fiidiyowgaygan aragto ama la gaarsiiyana waxaan ku leeyahay ilaahay ayaabaa kuu badinaya. barakadu waxa ay ku jirtaa waa xalaashaada. ha kuu yaraato ha kuu badnaato, wixii xalaal kuugu soo gala ayaabaa ka muhiimsan wax xaaraan aad ku liqdo. cunihii wax weyn la maryaana u qarxaa. xaaraan haddii aad calooshaada gelisana waa khatar. waa kii Cumar bin Khataab iska matajinayay ilaa iyo markii uu matagayayna cunto si qaldan kusoo gashay. markii uu cunay loo sheegay halkii ay ka timi markii loo sheegay waa kii farta isgeliyey ee liidhi Cumarow ka daa. markaasuu idhi calooshii wixii ku jiray oo dhan way kasoo baxeen ka daa. muxuu ku jawaabay haddii buu yidhi ay kasoo wada dhammaan waayaanna xitaa waan ku wadi lahaa ilaa ay xitaa naftuna la soo bixi lahayd, oo ugu jeeda ilaa naftu iga bixi lahayd. xaaraanta calooshayda haddaanay waa waxaanu ogeyn. xaaraan ma ahayn weliba, waa wax aanu ogeyn. hilib loo keenay markii dambena loo sheegay asxaabtii ka mid ahaa sida hilibkan uu ku helay u sheegay. marka qisadaa waad wada maqasheen baan u malaynayaa. waxa aan leeyahay runtii waa lala wada yaabay, waa lala tacajabay. aad baa loola tacajabay. sababta loola tacajabayna waxay noqotay wiilkan dhalinyarada intaasoo kun oo bir helay oo haddana islaantii u celiyey. dee ma jirto, waxay ula yaabayaan waa sanadkan baanay jirin. xaaraantii baa waxaan saa iskaga cunaynaa. allah haynaga dhaafo, ilaahay haynaga dhaafo. dada waxaan ku iri xaaraantii xalaashii baa la kala garan waayey. markaa social mediaha waxaa inankan yar sawirkiisu idiin muuqda loo soo wada dhigay ee tiktoke ee facebooko ee waxaan ku iri brofaylada lasoo saartayo waa laga tacajabay. markaa sanadadan u dambeeyey sayn horeba usoo sheegnay wax xalaal quuto ah ayaa la la'aa. sida ilmahan yaree dhalinyarada ahna usoo celiyey lacagtan ee hooyadii maamadaha uga farxiyey ee usoo celiyey. hooyadii baa la waraystay, waxaa la yidhi maxaad ilmahan ugu ducaynaya? way oyday, waxay tiri waxaan ugu ducaynayaa inuu ilaahay jannatul firdaws al-aclaa korbu iga gooye. mabay filaynin lacag Itoobiya ku dhex luntay ama jigjiga ku dhex luntaa la helayaa ma islahaan yaduna. oo aad bay ugu faraxday. waxaan leeyahay hooyada, waxaan leeyahay allah ku asturay, raxmaankaa kuu soo diray wiil xalaal quuto ah, raxmaankaa kuu soo diray ilmo xalaal lagu soo koriyey, raxmaankaa kuu soo diray ilmo toosan, raxmaankaa kuu soo diray ilmo aan balwad lahayn. maasha allah tabaarakallah. allah inooga wada dhigo ubadka sidan oo kale xalaal quutayaal allah inooga dhigo. ilaahay awlaadda aynu dhalayno kama dhigo qaar xaaraan quuta. hooyadaana waxaa leeyahay ilaahay baa ku asturay. ducadii aad u ducaysayna allaha ku aqbalo. waxaan ku leeyahay
waxaan idinkaga tagaa waa walaashii Farduus Xasan. faraha nuxnuuxiya, like, share, comment, wax kasta waa idinka dadka caayayaba ee ceebaynaya fadeexadaynayaba sidaa subscribe iyo like iyo daawashada loogu badinaye. daawashadana waxaan leeyahay videoga ii dhamaysta, subscribe ii saara, like ha iga hilmaamina, share tu waa dhankiina, commentiga caafimaadka qabaana waa dhiirigelin naftayda. waxaan idinkaga tagaa waa walaashiin oo idin leh fi amaan illah. assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.